after vacuum calooshii way aruurisay. dad badan ayaa dagaal kula jira korarka miisaankooda cayilka iyo caloosha. markii ugu horeysay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo kordhay mashiin casri ah oo lagu jarayo xeerta qofka ku jirta 20%. xarunta dadka cayilan ee Obesity Center ayaa waxaa maalin walba taga dad cayilan kuwaas oo rajo ka qaba inay miisaankooda dhimaan iyaga oo qaadanaya cunooyin loo qorayo talooyin la siinayo iyo mashiinka xeerta jara oo bishiiba mar la saarayo qofka. baradho iyo qudaar loo ekeysiyay baasto iyo cunooyin kale oo kala jaad ah oo cayilka lagu dhimayo ayay qaataan dadka la dagaalamaya cayilka iyo caloosha ee xaruntan loogu shaqeeyo. Dr. Kamaaludiin Cabdicaziis oo ah aasaasaha xaruntan ayaa Muqdisho Cable TV uga warramay sida xaruntani ay ugu gaartaay dadka miisaankoodu badan yahay iyo dadka doonaya inay caloosha iska ridaan. mashiino kuwii ugu dambeeyay caalamka ah ee xeerta yareeya. awalka hore waxaa jiri jiray kuwa invasive ah jirka gudihiisa la tarxo oo qofka in qaliin oo kaleeto ama la suuxin jiray. kani waxa waaye asagoo qofka aan dhibaatoon effortless, timeless, painless intiba ah side effectina aan lahayn inuu qofkii uu meeshii uu rabay isaga dhimi karo. hadday noqon lahayd calool, hadday noqon lahayd kelyihii, hadday noqon lahayd garbihii iyo wax lamid ah. wuxuu sameynaa in la barafeeyo xeertii kadibna ay gudaha jirka ku dhimato. systemkaaga jirka irbaaniga ah wuxuu u qalabaysan yahay in wax walba oo dhinto jirka gudihiisa ku jira dibadda loo saaro saxaro ahaan. marka waay bishii hal mar looga dhigay waxa waaye waxaa sugaynaa systemkaaga irbaaniga ahaa ee jirka ee qashin saarka in xeertii gudaha ku dhimatay uu dibadda u saaro iyadoo saxaro ah. way jiraan customer kaleeto oo dhanka cuntada nagu xirnaay muddada aan furnayna bisha ah waliba 20 bari kaliya customer nagu xirnaa. hadda 10 bari nama soo booqan laakiin 20 bari kaliya nagu xirnaa. markuu noo imanayay 94 ahaa haatan 85 jira oo 10 bari hadda waa ismoognahay laakiin 9 kiilo ku dhumiyay 20 bari gudahood bil wax ka yar. rag iyo dumar fara badan ayaa waqti ku bixiya inay cabirka culeyskooda dhimaan si uu muuqaalkooda u qurux badnaado. Cabdifataax Cilmi Faarax, Cabdifataax Faransa, Muqdisho Cable TV, magaalada Muqdisho.